jasiiradda Solomon Islands ayaa diiday maraakiibta badda ee Mareykanku inay soo galaan dekedahooda kadib markii uu dalkaasi u heshiis dhinaca ammaanka iyo iskaashiga uu la saxiixday Shiinaha sida maanta ay shaacisay safaradda Mareykanka ee Canberra ee dalka Australia. safaradda Mareykanka ayaa soo saartay qoraal sidan u dhignaa 29 August Mareykanku waxa uu wargelin rasmi ah ka helay dawladda Solomon Islands. wargelintaas ayaa ahayd in Mareykanka gebi ahaanba laga joojiyay inuu dhaqdhaqaaq ka sameeyo aaggaas badda Pacifica oo la micnaa in maraakiibta ciidamada badda ee Mareykanku aanay soo geli karin. waxaana sugaynaa wixii ka soo kordha qaab hawleedka wada shaqayneed. Zogaver oo ah ra'iisul wasaaraha Solomon Islands oo isna hadlay ayaa ka codsaday wadamada saaxiibka la ah dalkiisa inay siiyaan waqti ay ku dejiso hab cusub oo loo mari doono booqashooyinka dekedaha dalkaas iyo xeebaha dalkaas. wuxuuna sheegay in dalkiisu uu dhibaatooyin iyo xadgudub kala kulmo maraakiibta shisheeye ee badda dalkaasi soo galayay sanadihii u dambeeyey iyadoo aan la siin ogolaansho diblomaasiyadeed. wuxuuna sheegay inay khatartaas ka hortegayaan sida ay sheegeen xogo la hubo 23 August markab ay leeyihiin ilaalada xeebaha Mareykanka ayaa ka codsaday dawladda Solomon Islands inay shidaal ka qaataan deked ku taala dalkaas, laakiin mas'uuliyiinta dalkaas ayaa diiday codsigii Mareykanka. laakiinse markii dambe markabka Mareykanka ayaa ku xirtay jasiiradda Papua New Guinea. afhayeenka golaha amniga qaranka Mareykanka John Kirby oo diidmada Solomon Islands ka hadlay ayaa sheegay in Washington ay aad uga niyad jabtay go'aanka ay qaadatay jasiiraddaasi ayna ku noqotay lama filaan. Solomon Islands ayaa heshiisyo u badan iskaashiga ammaanka sanadkan waxay la gashay Shiinaha, waxaana heshiiskaas aad uga soo horjeesaday dawladda Australia iyo dalal kale oo reer galbeeda, waxayna ku sheegeen heshiiskan daahfurnaan la'aan iyo tallaabo aan laga fiirsan, iyagoo sheegay in heshiiska Shiinaha iyo Solomon Islands inuu colaad iyo kala shaki ka abuurayo gobolka. dhinaca kalena dawladda Shiinaha ayaa sheegtay inay ku jawaabi doonto tallaabo adag haddii Washington ay sii wado iskaashiga military ay la leedahay Taiwan oo ay Mareykanku ku doonayaan inay hub qiimo badan ku kacaya ay kaga iibiyaan jasiiradda Taiwan. sida ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka, madaxweyne Joe Biden ayaa qorsheynaya inuu Congress-ka ka codsado inay ansixiyaan hub lagu qiyaasay $1.1 bilyan oo Mareykanku hub kaga iibinayo Taiwan. afhayeenka safaaradda Shiinaha ee Washington Li Binggu oo arrintan ka hadlay waxa uu yidhi hubka uu Mareykanku Taiwan ka iibinayo waxa uu ka dhigan yahay xadgudub qaawan oo khilaafsan siyaasadda hal Shiine iyo heshiisyada diblomaasiyadeed ee ay wada gaareen Mareykanka iyo Shiinuhu. heshiisyada noocan oo kale ah waxay sidoo kale xoojinayaan gooni-goosodka, waxayna sii kordhinayaan xiisadda marinbiyoodka Taiwan. waa xaqiiq in Shiinuhu uu qaadi doono tallaabo adag. hubka uu Mareykanku ka iibinayo Taiwan sida ay sheegayaan ilo xogogaala waxaa ka mid ah 60 xabo oo ah gantaalaha marka burburinta loo adeegsado ee la yiraahdo HEM-84L Harbor Block 11 oo lagu iibiyo lacag dhan $355 milyan. 100 xabo oo ah gantaalaha AIM-9X iyo Block 11 Sidewinder oo cirka loo adeegsado oo qiimihiisu uu ku kacayo $85 milyan. waxaana qorshaha ku jira sidoo kale horumarin Mareykanku uu ku samaynayo hanaanka raadarada Taiwan, arrintaas oo ku kacaysa lacag gaaraysa $655 milyan.